qoraa Cismaan Saalax oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay doorashada fooda inagu soo haysa ee dhawaan la filayo inay ka dhacdo dalkan Soomaaliland isagoo dadweynaha ugu baaqay qoraagu inay si nabad ah codkooda u dhiibtaan waxaanu la dardaarmay guddida komishanka doorashooyinka qaranka maalmo kooban kadib haddii eeba idmo waxaa arlada Soomaaliland ka bilaami doonta dowlatuskii doorashada saddex xisbi qaran taasoo dhici doonta haddii eeba raalli ka noqdo 13 November 2017 haddaba waxaan ummadda reer Soomaaliland xasuusinayaa in ay doorashada si nabada ku galaan inta lagu guda jiro dowlatuskana ay iska ilaaliyaan meel ka dhaca deelqaafka xafiiltanka xun iyagoo laabta ku hayn doona wax wada lahaanshaha gobonnimada iyo milgaha maamuuska ay xaq isugu leeyihiin mawduuca labaad waxaan kula talinayaa saddex xisbi qaran inay qortaan muraaqibiin ama se ilaaliyaal leh xirfad xisaabeed qodobka saddexaad waxaan talo u soo jeedinayaa guddida doorashooyinka Soomaaliland inay duubis u gaara taasoo ah marka ay soo dhamaato ee la xidhayo tirada gobol kasta si looga badbaado doorasho keenta muran riiq dheeraada oo aayihiisu ku dambeeyo colaad kala lun iyo kala huleel ugu dambayn waxaan saddexda xisbi u baaqayaa guddoomiyaashooda una sheegayaa in helista kursiga madaxtinimadu ay tahay saymo u baahan taxadir iyo waayo aragnimo talo waa marad garan weyday iyo marad gaari weyday Mahad Ali Goodir Star TV Burco.